Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka tarjumaad. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso ah hooyo ayaa dhaqaatiirta waxay ka soo sheegeen cudurka kansarka dhiigga iyo inuu marayo heerkiisa ugu halista badan. Kadib maalmo ayay haddana u soo laabatay markii baaritaan lagu sameeyeyna dhaqaatiirtii jawaabtii soo baxday ayay la yaabeen waayo cudur oo dhan ayay ka waayeen. Markaas ayay weydiiyeen dawada ay isticmaashay. Ka hor intaynan qisadan bilaabin, ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Hooyo ayaa waxaa laga soo sheegay cudurka kansarka dhiigga ah kadib waxay keensatay qaadimad Indoneesiyaan ah. Ku dhowaad isbuuc markii ay joogto qaadimadan ayaa hooyadii waxay aragtay gabadhan qaadimadda ah in ay musqusha wax badan ku noqnoqonayso in ka badan sida caadiga ah, haddana ay ku soo daahayso. Maalin ayay weydiisay sababta ay ugu soo daahdo musqusha. Gabadhii qaadimadda ahayd waa ay iska oyday. Hooyadii waa ay la yaabtay waxayna weydiisay waxa ay la oynayso. Waxay tiri 20 maalin anigoo umul ah ayaa xafiis ku yaala Indonesia layga soo wacay, waxaana la igu yiri shaqo ayaa lagu hayaa. Waxaan doonay inaan fursadan ka faa'iideysto oo aan idiin shaqeeyo maadaama aan u baahannahay lacag waayo faqri ayaan nahay. Sababta aan musqusha ugu daahana waxay tahay naasahayga caano ayaa ka buuxa, caanaha ayaana iska daadiyaa. Hooyadan markii ay ogaatay waxay u sheegtay gabadhan waxay u diyaarisay tikid Indonesia oo degdeg ah. 2 sano lacagteeda oo hormarisna way u diyaarisay. Waxayna ku tiri lacagtan waa 2 sano mushaarkaaga oo hormaris ah. Orod cunugaaga soo nuuji soona daryeel. Kadib waxay siisay taleefan nambarkeeda. Waxayna ku tiri 2 sano kadib haddaad rabto waad soo laaban kartaa. Qaadimadii markii ay safartay kadib hooyadu waxay lahayd ballan ah in ay la socoto isbeddelka ku yimid cudurkeeda oo ahaa kansarka dhiigga. Baaritaanka markii ay martayna jawaabtii ayaa ka yaabisay dhaqaatiirta waayo wax cudur ah ayaa laga waayay. Dhakhtarkii wuxuu codsaday dhowr jeer in lagu celiyo baaritaanka, laakiin mar walba jawaabta isku mid ayay ahayd. Cudur raadkiisa ayay ka waayeen. Dhakhtarkii caafimaadkeeda ayuu la yaabay waayo wuxuu ogaa cudurka heerkiisa ugu khatarta badnaa inuu gaarsiisnaa. Raajada ayuu wareejiyay wuxuuna ogaaday heerka kansarka inuu yahay 0. Kadib dhakhtarka wuxuu yaqiiniyay caafimaadkeeda, laakiin wuxuu weydiiyay dawada ay isticmaashay. Jawaabteedana waxay ahayd xadiidkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ahaa daawuu mardaakum bisadaqa, bukaankiina ku daweeye sadaqo. Sidoo kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi man yassara calaa mucsirin yassara Allahu calayhi fi dunya wal aakhirah. Qofkii qof culays haysta culayska ka qafiifiya oo ka dulqaada, Allana wuxuu ka yasiraa oo ka qafiifiyaa culaysyada adduun iyo aakhiro.